Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran channelka Samna Kasta Official. Fadlan haddii ay tahay markii hore channelka soo booqato subscribe noo saar, gambaleelkana furo si markasta ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan halka ku soo gudbino. Haddii aad hore noo joogtana muuqaalka like noo saar sidoo kalena sii share garee si uu markaas saaxiibo badan u gaaro ayna ugu soo biiraan channelka. Waana ku mahadsantahay. barnaamijkan maanta waxaa diiradda ku saaranaa filimada OTT-ga lagu soo fasaxay bishan November ay hadda ku jirnay sidoo kale bisha soo socotay December. Filimadaas waa filmo xiiso badan sidoo kale hamuun badan loo qabo filimada in la daawado marka lagu tarjumo afkana Soomaaliga. Filimadaas waxaa ugu horeeya filimka lagu magacaabo Jub oo marka hogaamiyaalka yihiin ninka lagu magacaabo Dalkuur Salmaan sidoo kale Sunny Deol. Sidoo kale filimka ku xiga waa Kantara oo marka hogaamiyay Rehab Shati. Filimkaas waa filim si weyn loo sugayo sidoo kale filimka waxa soo baxay 3 September. sidoo kale wacdar cusub ayaa ka dhigay dhanka box office-ka maadaama filimkaas sida laga filayay sidoo marka uu gaaray ay markaa tahay wax kala dheer. sidoo kale haddii aan ku bilowno filimka Jub oo marka hogaamiyaalka liin Sunny Deol sidoo kale Dalkuur Salmaan. Filimkaas waa filim xiiso badan waxaa soo baxay 23 September ayuu filimkaas soo baxay oo marka waxa la isku keenay Dalkuur sidoo kale Sunny Deol. waana filim xiiso badan halka filimkan ay samay Arbalki. sidoo kale filimka shirkadda lagu magacaabo C Studios ayaa filimka maalgelisay. sidoo kale isla hadda filimka C Studios ama C5 ayaa filimka barta C5 oo OTT adeeg OTT bixisay ayaa filimka lagu soo fasaxi doonaa 25 November. sidoo kale filimkan waxaa jilaa qayb shirkadda lagu magacaabo Pan India Limited oo inta badan qaybisa shirkadaha marka afka lagu daawado af Hindiya iyo sidoo kale Telugu ay inta badan shirkadahan xajilada qaybisa marka tiyaatarada u qaybisa. sidoo kale filimka tiyaatarada ama way wuxuu saarnaa ku dhawaad 2 bilood maadaama filimka 23 September oo marka maslaxa la saaray haddana waa ku dhawaad 25 November ayaa filimka lagu soo fasaxi doonaa taasoo ka dhiganta filimkan after 2 months ama 2 bilood kadib in markaas OTT-ga lagu soo fasaxay. sidoo kale filimka dhanka box office ama tiyaatarada filimkan waxa ku noqday filim hit ama macaash fara badan laga helay maadaama filimkan qolyaha iskale ama tiimka filimka iskale ay sheegeen filimkan 10 karoor ilaa 15 karoor filimkan in markaa ganacsigiisa lagu kharash gareeyay filimkan. sidoo kale filimka tiyaatarada waxa ka soo xaray ku dhawaad 30 karoor ilaa 35 karoor ay filimkan tiyaatarada ka soo xaray taasoo ka dhigantay filimkan laba in markaa macaashkiisa laga helay. sidoo kale qolyaha filimka iskale ayaa markaa cajalada qaybiyay oo markaa dheeraad oo ay xisaaran tiyaatar oo markaa shirkad kale markaa filimkan uma aysan xisaaran. sidoo kale filimkan doorka atarsha waxa ka soo muuqda gabar lagu magacaabo Sharyaan Dhawalari oo markaa doorka Dalkuur Salmaan markaa lamaantiisa ku matalaysa. sidoo kale waxa ku jira gabar lagu magacaabo Pooja Bhatt oo markaa la dhartay xigta caanka Alia Bhatt oo filimka doctorate ku matalaysa maadaama filimka Dalkuur Salmaan uu markaa ku matalay nin markaa dhimir kala oo markaa dadka iska dilaya halka filimka Sunny Deol filimka askari meel ku matalayo oo markaa kiis dilalka Dalkuur Salmaan oo markaa Dalkuur Salmaan markaa dilka sameeyay daba galayo markaa ninka la soo qabanay Dalkuur Salmaan si markaas loo ogaado sababta markaa dadku u dilayo taasoo markaa filimka inta badan xiisaha badan isku bedelaysa oo markaa Sunny Deol iyo markaa Dalkuur Salmaan markaas ay xifaaltan adag markaa dhex mari doonaan oo markuu dilalka geysanayo sidoo kale Sunny Deol ku daba jiro si markaas uu soo qabto. sidoo kale filimkan barta C5 ayaa saaca laga qaaday in laga daawan doono 25 November waana jimcaha foodo lagu soo haysaa ama 4 maalin kadib ayaa filimkan OTT-ga lagu soo fasaxi doonaa. waana akhbaar wanaagsan sidoo kale haddii Soomaali lagu soo joogo wax soo dhigi doonaa groupka Telegram-ka. sidoo kale waxa soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Kantara oo marka ah filim marka laga leeyahay dhankaas Canada ama fanka loo yaqaan Sandalwood ayaa filimka laga leeyahay waa filim isku jira action iyo thriller khiyaano. sidoo kale filimka waxa qoray ninka lagu magacaabo Rehab Shati isla isaga ayaa filimkan director kale sidoo kale isla hogaamiyaha Saka saddex door kala duwan ay filimkaas u qaatay doorka director sidoo kale rating sheekada saa qoray sidoo kale doorka hogaaminta saa qaatay sidoo kale awood balan ay sidoo kale actor-ka lagu magacaabo Rehab Shati waa soo laabtay maadaama inta badan filimadiisa ee markaa ku xildaamnaa dhankaas Kanataka balse hadda actor-ka wuxuu noqday Pan India Star oo markaas cinema filan actor-ka uu noqday Pan India Star. haddii aan filimka dib ugu laaban 30 September ayuu filimka soo baxay. sidoo kale filimka wax maslaxa la iska saaray filmo badan ay jiraan dhankaas Tamil waxa uu la saarmay filimka lagu magacaabo Puriya Silvan Part 1 kaas oo noqday filim guuleystay. sidoo kale dhankaas Bollywood-ka waxa la saaray filimka Vikram Vedha kaas oo noqday filim follow balse marka tiyaatarada filimka Vikram Vedha oo follow ka noqday waxa la saaray filimka Kantara kaas oo dhankaas waqooyi Hindiya ama fanka Bollywood ka noqday filim hit macaash fara badan laga helay. sidoo kale dhanka koonfur Hindiya filimkan wax waliyo ka sameeyay maadaama filimka ganacsi balaaran inta badan uu ka sameeyay dhankaas koonfur Hindiya gaar ahaan fankiisa loo yaqaan Karnataka ayuu filimka wax ka soo xareeyay ku dhawaad 175 karoor isagoo markaa u dhawaaday iskoorkii markaa KGF Chapter 2 inuu markaa jabiyo oo ahaa in markaa fanka Karnataka uu filimka KGF Chapter 2 markaa soo xareeyay ku dhawaad 182 karoor halka filimka lagu magacaabo Kantara soo xareeyay 175 karoor taasoo ka dhigan tahay filimka 7 karoor inuu leeyahay filimka lagu magacaabo KGF Chapter 2
taasoo markaa haddii markaa u gaari lahaa oo markaa noqon lahaa filimka Katara filimka lacaga ugu badan kasoo xareeyay marka la joogo fanka Karnataka isagoo markaa iskoorka kala wareegi lahaa filimka KGF oo markaa hogaamiyay Hayash balse filimka luma aysan suurtagelin in markaa darajada gaaro balse waxa laga yaabaa si tartiib ah markaa darajada ku gaaro maadaama filimkan ilaa 24 November oo markaa maslax si saaraan doono waxaana laga yaabaa in markaas inta markaa fanka Karnataka filim weyn ka soo baxay markaa filimka maslax si saarnaado oo markaa daawadayaasha markaa tiyaatarada soo aadaan si markaas filimka inta ka dhiman ganacsigiisa markaa uu bixsamay markaa soo qabto filimka lagu magacaabo KGF Chapter 2 oo markaa gaaro ku dhawaad 180 ilaa 190 karoor soo kale filimkan waxa xiiso u yeelay waxa tahay filimkan lacagta lagu kharash gareeyo lacagta soo xareeyay oo waxa aad u kala dheer oo farqi aad u kala dheer ayaa filimka ku jira maadaama filimkan ku dhawaad lagu kharash gareeyo 16 taasoo u dhiganta lacagahan markii loo fiiriyo dollar ahaan 1,900,000 Mareykanka ayaa filimka lagu kharash gareeyay balse lacagta soo xareeyay waa ku dhawaad 370 karoor lacagtaas oo sano u dhaafaysa ku dhawaad 44 milyan taasoo ka dhigan tahay farqiga marka aad ku dhaxay waa ku dhawaad 43 milyan dollarka Mareykanka ayaa filimkan farqi aad weyn u dhaxay maadaama filimkan 1,900,000 ama 2 milyan iska dhigo marka 2 milyan dollarka Mareykanka filimka lagu kharash gareeyay isagoo filimkan wuxuu soo xareeyay 44 milyan dollarka Mareykanka sidaas ayuu ku noqday filimkan all time blockbuster box office kan wuxuu ka dhigay wacdar marka hore loo dhigin maadaama filimkan lacagta lagu kharash gareeyo lacagta marka uu ka soo xareeyay box office ay yihiin farqi aad u kala dheer waxaa noqday filimka marka filimka ugu saameynta badnaa marka jooga fanka Bollywood aan iraahday fanka Hindi oo idil maadaama filimkan maalmintiisa koowaad marka ku bilowday lacag aad u yar ku dhawaad wuxuu ku bilowday 1 karoor iyo bar ilaa 2 karoor filimka ku bilowday soo kale filimka konton cisho ay timaastar xasaariyay wuxuu soo dhaxray 370 soo kale maalmaha foodan uu saas filimka waxa laga yaabaa inuu gaaro 375 karoor taasoo damaqaanaysa filimka inuu ganacsigiisa gaaro ku dhawaad 45 milyan dollarka Mareykanka asxaabta filimka 16 November ay OTT lagu soo fasaxay doona waxay ka soo korana waa la soo siin doonaa wax hadii la soo tarjumana filimka waxa soo dhigi doona groupka Telegramka ku leenahay Family Entertainment ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan haddana waxa soo qaadanayna filimka lagu magacaabo Govinda Namera waxaan hogaamiyay Vicky Kaushal filimkan sidoo kale waxa kula jira gabdhaha lagu kala magacaabo Kiara Advani sidoo kale Bhumi Batangar filimkan waa filim xiiso badan halka filimkan agaasimay ninka lagu magacaabo Shashank Khaitan waana filim xiiso badan Vicky Kaushal ka soo laabanaya tan iyo filimkiisa Sardar Udam kaasoo sanadii 2021 kaasi OTT-ga barta Amazon Prime filimka oo ka noqday filim marka aad daawadayaasha uga heleen sidoo kale barta OTT-gana aad looga soo dhaweeyay haddana xidiga hal sano kadib ayuu marka OTT-ga ku soo laabanaya wuxuu rabaa filimka lagu magacaabo Govinda Namera oo marka OTT-ga ku qabsado halka filimka shirkadda lagu magacaabo Dharma Production uu ninka lagu magacaabo Karan Johar madax u yahay filimkan ee maalgelisay sidoo kale filimka Disney Plus ayaa laga iibiyay oo marka filimkan shirkadda Dharma Production Disney Plus marka lacag marka ka qaadatay sidoo kale filimka marka qorshe uu waxa in marka tiyaatarada saaro balse filimka uma aysan suurtagelin maadaama dhankaasi Bollywoodka xaalad xun ku jiraan maadaama filimkii marka tiyaatarada saaro oo marka lacag yar marka soo xareynayo sidoo kale ninka lagu magacaabo Karan Johar culeys badan saara maadaama filimadiisu ugu dambeeyay ganacsiga marka dhexaad ka sameeyeen sidoo kale waxa filimadiisu ugu dambeeyay noqday joojiyo filimka wuxuu noqday film average inkastoo marka lacagiisu filimka ku kharash gareeyay marka uu inta badan ka soo xareystay marka qasnadiisii ku xareystay sidoo kale filimkii Brahmastra oo ah filim marka ganacsi waliye sameeyay sidoo kale 400 karoor gaaray sidoo kale filimka waxa la sheegay labadiisa qiimo Brahmastra inuu ku kharash gareeyay 400 karoor taasoo ka dhigantay inuu marka lacag fara badan luubay sanadkaas 2022 sidoo kale filmo badan la maalgeliyay haddana filimka lagu magacaabo Govinda Namera dhanka barta lagu magacaabo Disney Plus Hotstar iyo filimka ka iibiyay waxaan la daawan doonaa December 2006 December 16 ama bisha December 16 filimkan OTT laga daawan doona waliba barta loo yaqaan Disney Plus Hotstar ee filimkan shaac laga qaaday sidoo kale filimkan wali laga soo bandhigay teaser ama goosgoos ama trailer filimka wax laga soo bandhigay balse waxa u baahan tahay maanta ama bari filimkan marka laga soo bandhigi doono trailer sidoo kale filimkan maanta waxay qabanayaan trailerka ama goosgooska filimka waxay qabanayaan trailerka ama goosgooska marka promotionska ama xayeysiintiisa ay filimkan qaban doonaan waxaana u baahan tahay maanta garinka dambe filimkan in marka trailerka soo fasaxi doona taasoo ka dhiganta ilaa markii laga gaari doono bisha December 16 filimkan inay promotion ama xayeysiin u sameyn doonaan si marka filimka daawadayaasha OTT-ga ay markaas uga gadaan sidoo kale filimka dhanka TV-da loo weecin doona oo marka TV-da ayaa marka filimka loo weecin doona si markaas dhankaas dadka guryaha jooga marka TV-da uga daawadaan si markaas uu helo filimka views badan haday noqdaan dhanka OTT sidoo kale dhanka TV-da
sidoo kale filimkan weli sheekada markaa filimkan xabaarsan yahay goofinta Namera iyo sida doorarka kala duwan ee filimkan u kala qaadan doonaan gabdhaha Kiara Advani iyo sidoo kale Bumi Badankar weli shaac lagama qaadan balse haddii markaa trailerka ama goosgooska la soo bandhigo filimkan wuxuu iftiiminaya doorarka kala duwan ee markaa qaadan doonaan labada gabdhood ee Kiara Advani iyo sidoo kale Bumi Badankar iyo Vicky Kaushal filimka doorka weyn ka qaadan doono sidoo kale actorka waxaa leeyahay soo laabasho markaas degdeg oo inuu sameeyaa maadaama filimka actorkan xamuun badan loo qabo sidoo kale xiisihiisa markaas aad u sareytan ee filimkiisa lagu konstatal Danyuri Daisrajalal oo markaa noqday film blockbuster weyn sidoo kale actorkan uu ku helay sidoo kale bilad fara badan sidoo kale sumcad fara badan oo markaa ku abuurtay xidigan haddana waxaa la sugayaa film markaa xisaab badan actorkan ku dhawaaqo oo markaa la daawan doono sanadka 2023 oo markaa loo saari doono tiyaatarada ana markaa ka soo muuqan doono OTT-ga oo markaa filimkiisa laga daawan doono dhankaas tiyaatarada asxaabta waxay ka soo kordhan way la socodsiin doonaa filimkan December 16 kale waxa la soo dhigi doonaa barta lagu magacaabo Disney Plus Hotstar asxaabta haddii aad muuqaalka ka heshay like noo saar waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.